بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المها الصوماليات أودن وحا أي مذنيين إن أي هلان وحبرشة تييسن أو أد ونكسن waxbarashadu waa mustaqbalkeeni waa aayaheeni waxa maanta la geliyo ayaa bari ka soo go'aya jiilka maanta waxa aynu ku maalgelino ayuuna bari noqonaya baarin loo baahan yahay marka inaan loo kala harin dad dawlad iyo dadweyne intaba waalidiin iyo institution intaba in la isugu xirto loo baahan yahay oo qof waliba kaalintiisa uu qaato magacaygu waa Sharmaarka Aadan Dhuugow markaan weynaado waxaan jeclahay inaan dhaqtar noqdo si aan wax ugu qabto dhibaatada dalka ka jirta sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan helo aqoon wanaagsan caruurteena aynu wax baraa waxay qayb ka qaadanaysaa la dagaalanka faqriga iyo jahliga magaca bilaaw Yuusuf Baarbe waxaan jiraa 12 sano maadaama aan waxbarasho aan rabaa ilmaha oo dhan oo wax la baraa waa waajib saaran waalid kasta gabadho wax la baraa waa mujtamaca wax la baray waxbarashada mar kastaba ummad kasta waxay u tahay muhiim sababtoo ah waxay muhiim ugu tahay inay wax u tarto ummadda dhaqan ahaan iyo muxuu ahaa bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba aniga ka macallin ahaan waxaan diyaar u ahay in aan ka ciyaaro doorkayga sidoo dalkan dib ugu dagi lahaa waxbaridda waa xirfad aad u wanaagsan haddana caqabadeeda leh sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan helno taageero dheeraad ah oo ka helno dadka Soomaalida ah waxa la inooga baahan yahay far ama baro magacay waxa la Mukhtaar Maxamed Ibrahim aniga wax ma barto inaa wax barto waa ilmaha inaa wax dhigo laakiin daruufta ay kaliftay hooyaday aabiyo shaqaysta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Jibriil Isaaq Abdi burburkii Soomaaliya ka dhacay kadib waxaan kamid ahay dhalinyaradii ku waxbarasho beeshay burburkaasi qoyskaygu way awoodi waayeen inay bixiyaan waxbarashada iskuulka tacliintu waa waxa kaliya oo lagu horumarin karo aadamaha xasiloonina lagu gaari karo waxbarashadu waa wixii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada maanta jirta waxa kaliya oo ina ka saari kara waxbarasho waxa loo baahan yahay inaan loo kala harin oo ilmaha lagu dhiirigelin inuu iskuul aado iskuulka tayadiisa laga shaqeeyo mustaqbalka dhan waxbarasho uu noqdo